ambasador Michel Corfena iyo mas'uuliyiin kale. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda isla markaasina uu ku saxan yahay afhayeenka wasaaraddaasi Axmed Yuusuf Taani waxa isagoo faahfaahin ka bixinaya ujeedada socdaalka wasiirka arrimaha dibadda Somaliland uu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda mudane Maxamed Biixi Yunis inta uu socdaalkan ku guda jiro waddankaasi Kenya magaalo madaxiisa Nairobi kula qaadan doono ergeyga midowga Yurub u qaabilsan Somaliland iyo Soomaaliya. kulankaasi oo ay wada xaajood kaga yeelan doonaan xiriirka wada shaqeyneed ee u dhaxeeya Somaliland iyo qaaran bixiyayaasha siiba barnaamijka cusub ee loo yaqaan New Deal kaasi oo ay wadajir u wadaan midowga Yurub iyo dalalka kale ee deeq-bixiyayaashu. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Somaliland waxa sidaasi oo kale inta uu socdaalkaasi ku guda jiro kulamo la qaadan doona mas'uuliyiinta qaramada midoobay iyo kuwa midowga Yurub ee ku sugan Kenya kuwaasi oo kala hadli doono sidii deeqaha iyo gargaarka loo fidiyo Somaliland uu noqon lahaa mid ku qotoma waaqaca dhabta ah ee Somaliland iyo inay tahay qaran madax bannaan oo shaqeynaya isla markaana yeesha la xisaabtankiisa kaasi oo ka turjumaya baahiyaadka rasmiga ah ee mujtamaca Somaliland. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland mudane Maxamed Biixi Yunis waxa sida war-saxaafadeedku xusay uu u gudbin doonaa midowga Yurub mowqifka Somaliland ka taagan tahay shirka ka dhici doona 16 bisha September ee foodan ugu soo haysa magaalada Brussels ee waddankaasi Belgium sida uu ku cadeeyay hadalkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland uu ka jeediyay munaasabadii ciidda barakeysan. waxaana uu sidoo kale gaarsiin doonaa madaxda ay wada xaajoodka yeelanayaan in rabitaanka dhabta ah ee qarankiisa uu salka ku hayo sidii looga taageeri lahaa horumarinta dimuqraadiyadda